wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamulka Galmudug ayaa maanta si toos ah loo wareegtay garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado. munaasabad kooban oo ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado oo si toos ah wasaaraddu ula wareegaysay maamulka garoonka waxa ka soo qayb galay maamulka garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado, maamulka degmada, qaybo ka mid ah golaha wasiirada Galmudug oo goobjoog ka ahaa munaasabadan lagu wareejinayo garoonka. gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yarow Xayle oo ugu horreyntii goobta ka hadlay ayaa sheegay inay bogaadinayaan inay wasaaraddu ay si toos ah ula wareegto gacan ku haynta garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado oo horey ka bani si gaar ah loo leeyahay gacanta ugu hayay. maanta waxaa farxad weyn loo ah in dawladnimadii soo socotay ee Galmudug ee soo bilaabatay xilligii Galmudug dhisay oo hadba step soo marayay in maanta guushii ugu dambeeyay aan joogno oo si dawladnimo aan rabno inaan dhammaan dalka ku wareejino eelaboorradii Galmudug canshuuraadkii dawladaha hoose iyo maaliyadda dhammaantood qaybaheeda kala duwan. farxad ay noo tahay marka maanta xafladan inaan ku muujino in dawladnimadii la xoojiyo, dib loo soo celiyo kala dambeyntii shaqooyinkii la kala lahaa dhammaantood. aadan ugu faraxsanahay, waan soo dhaweynaynaa ka degmahan. marayaha garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado Daahir Maxamed Cabdulle ayaa sheegay in wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka Galmudug maanta laga bilaabo ay ku wareejiyeen gacan ku haynta garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado iyo maamulkiisa, kaas oo walba lagu shaqay jiray bulshada ku kala dhaqan deegaanada maamulka Galmudug. iskugu nimid waa munaasabadii wareejinta aeroboorka Cadaado oo awal hore ay gacanta ku haysay kambaniga Brothers Company, haddana ku wareegaya gacanta dawlad goboleedka Galmudug. anigoo ah maareeyaha aeroboorka Cadaado Daahir Maxamed Cabdulle waxaan rabaa inaan ku wareejiyo wakiilna ka ah kambaniga Brothers in aan ku wareejiyo aeroboorka Cadaado International Airport oo boorkiisa halka uu ku yaalo aad u jeedaan inaan ku wareejiyo wasaaradda duulista iyo gaadiidka wasiir dawladeeda. abshir ku soo dhawow la wareeg. waxaad soo aragtay indhaha ku soo aragtay aeroboorka runwaygiisa, baakinka, terminalka, shaqaalihii. waxaan u malaynayaa meesha aan soo gaarsiinay waxay Cadaado rabaan cid hore uga sii qaada oo u sii wada oo gaarsiisa waxa yarka ah oo ka dhiman. agaasimaha waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda maamulka Galmudug Cabdikariin Muuse Ibrahim ayaa sheegay in wasaaraddu ay xafiis cusub ka hirgelinayso garoonka diyaaradaha si loogu aruuriyo canshuuraha. tigidhka uu la yimaado inay hubiso wasaaradda maaliyaddu qofka dhoofaya uu soo maro sida migration kale ay shaabad ugu dhufato ayna diiwaan geliso. markii diyaaraddu kacdana ajensiga waxaa laga rabaa canshuurta ku waajibtay ee dadka laga qaaday inay ku dhacdo akoonka dawladda. qofka lacagta shubayaahi oo canshuur bixiyaha ahi wuxuu ku shubayaa akoonka dawladda lacagta ku shubi maayo ninka shaqaalaha telefonkiisa iyo qof kale telefonkiisa midna lagu shubi maayo. waxaa lagu shubi doonaa akoonka dawladdu ay leedahay oo si toos ah ugu dhici doonto isla markaasba. ayada ayaana markaas la arki doonaa wasiir ilaa iyo agaasimo waaxid inta ka dhaxal daqiiqada lacagtaas ay ku dhacday systemka oo laga wada arkaya. wasiir dawlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamulka Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo dhankiisa ugu dambeyntii goobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay in si toos ah loo wareegeen garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado, isla markaana shaqadii uu horey bulshada ugu hayay la sii laba jibaari doono si loo hormariyo adeegyada ay bulshada u hayaan garoomada diyaaradaha deegaanada Galmudug. oo noqonaya garoonkii ugu horeeyay ee wasaaradda gaadiidku ay la wareegto laga soo bilaabo bilowga Galmudug ilaa maanta. waxaan sidoo kale ku faraxsanahay aadna u soo dhaweynaynaa wana aragnaa inay yihiin markii ugu horeysay ama meeshii ugu horeysay ama garoonkii ugu horeeyay la wareejiyo dawladdana lagu wareejiyo oo ahaa garoon markii hore loo maamulayay si gaar ah, maantana noqonaya garoonka Cadaado garoon hoostaga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. intaa kadib waxaan rabnaa inaan xaqiijino maanta wixii ka bilowdo oo tahay taariikhda bisha 8aad 7adeeda 2020 inaan la wareegnay garoonka Cadaado shaqaalaheeda oo ugu horeeyo maareeyaha
aeroboorka inay la wareegi doonto wasaaradda gaadiidku insha allahu tacaala maamulka maaraynta amniga iyo dhammaan wixii horumarina ee looga baahan yahay aeroboorkan inaan la wareegi doono mas-uuliyaddaasna aan qaadi doono waxaan u mahad celinaynaa run ahaantii kambanigii isxilqaamay wakhtiga dheer soo geliyey xilli galmudug runtii amaba aysan jirin amaba ay leeleecaysay oo soo hitinaysay inay ka dhigaan garoonkan garoon si gaara uga muuqda garoommada ku yaalla dowlad goboleedka garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado horey waxaa gacanta ugu hayay kambani si gaar ah loo leeyahay oo dadka deegaanka iska leeyihiin Mahad Nuur Axmed Dalsan TV magaalada Cadaado.